Dowladda Kenya ayaa sheegtay inuu jiro qorshe dib loogu soo celinayo muwaadiniin Kenyaan ah oo ku sugan wadamada kale ee caalamka sida dalka Shiinaha, Ingiriiska iyo Indiya. Xogayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya, Ambassador Macharia Kamau, ayaa maanta sheegay in toddobaadka soo socda lasoo daadgureyn doono qiyaastii 500 oo muwaadiniin Kenyaan ah. Diyaarad ay leedahay shirkadda qaran ee duulimaadyada ee Kenya Airways ayaa 300 oo dadkani ka mid ah ka soo qaadi doonta gudaha dalka Shiinaha halka 200 oo kalena laga soo qaadi doono dalka Indiya. Mr. Kamau ayaa intaa ku daray in Kenyaanka ku xayiran Indiya badankooda ay halkaasi u tageen daryeel caafimaad. Xogayaha ayaa sidoo kale xusay in ilaa iyo hadda 18 muwaadiniin ay dalka dibadiisa ugu dhinteen cudurka coronavirus. Waxaa weli isbitaal ku yaala dalka Sweden ku jira qof Kenyaan ah kaasoo ay xaaladiisa caafimaad aad u liidato. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya ayaa sheegtay in qoysaska doonaya inay soo qaadaan meydadka ehladooda ku dhintay qurbaha ay la bixi doonaan qarashaadka haddii kale loo ogol yahay in ay doorbidaan in meydka ay ku gubaan dalka uu ku geeriyoodo. Sidoo kale waxaa la filayaa in maalinta Talaadada ah ee toddobaadka soo socda ay dalka Kenya ku soo wajahan tahay diyaarad sida Kenyaan ku xayiran dalka Ingiriiska. Diyaaradaas oo ka soo duuli doonta garoonka diyaaradaha magaalada London ee Heathrow Airport. Safiirka dalka Kenya u fadhiya magaalada London, Mr. Manoha Ezebizo, ayaa sheegay in cid kasta oo doonaysa in halkaasi laga soo qaado uu ugu baaqayo inay xilli hore isi soo diiwaan geliyaan. Ugu dambeyntii, dhammaan rakaabka Kenyaanka ah ee laga keenayo wadamada Shiinaha, Indiya iyo Ingiriiska ayaa laga doonayaa inay sitaan dukumiintiyo cadeynaya inaysan saameynin caabuqa coronavirus. Iyadoo sidoo kale dowladda Kenya ay diyaarisay goobihii ay ku karantiili lahayd muwaadiniintaasi u dhashay dalkeeda marka ay soo gaaraan garoonka diyaaradaha ee dalka Kenya, Jomo Kenyatta International Airport. Iyadoo sidoo kale muwaadiniintaasi ay dowladda gacanta ku hayn doonto ilaa 14 beri si loo hubiyo badqabkooda caafimaad ka hor inta aan loo fasixin inay dalka gudihiisa u sii gudbaan. Cabdiraxmaan Atore, wararka 5TV, Nairobi.